بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هذا يدك كوفر البيت دقن walaal muwaadin Soomaaliyeed oo xaq iyo xuquuq u leh baa tahay inaad u tartanto jagada ugu sareysa dalka. walaal ma ogsoon tahay in cidna aysan ka mudnayn. walaal ma ogsoon tahay in dowrkaagii la gaaray. walaal wadankan 30 sanadood ayuu burbur ku jiray wuxuuna u xirnaa laba beelood oo beelaha Soomaaliyeed ka mid ah oo isla heysiyay in iyagu ay noqon karaan madaxweynaha dalka iyo ra'iisul wasaaraha dalka. adigana waxaa lagugu soo koobay inaad maaragtay ku ekaato baarlamaanka aadan soo dhaafin si awooddaada iyo saameyntaada ay u yaraato. walaal ma ogsoon tahay in dabinada lagu dhigayo loo adeegsanayo shakhsiyaad daciif oo masaakiin ah oo aan maaragtay kala garanayn dantooda iyo maslaxadooda aanan aqoon kaliya fiirsanaya shilimaadka yarka iyo kursigaas yarka ay ku fariisanayaan. kuwaas shakhsiyaadkaas ayaa inta lagu soo isticmaalo ayaa waxaa lagu koobayaa baarlamaanka si deegaankaaga aadan saameyn ugu yeelan si aadan marna horumar u gaarin si aadan nabad u helin sababtoo ah waxaa tahay populationka ugu tirada badan waxaa tahay ciidanka xoogga dalka qofka ugu tirada badan waxaa tahay deegaanka ugu barwaaqada badan ayaa deegaankaagu u yahay intaas ayaa lagu diidaya marka waxaa laga ilaalinayaa inaad u tartanto jagada ugu sareysa dalka saas darteed ayaa waxaa loo soo hormarsiiyay in guddoonka baarlamaanka kow la doorto مسكين أديك كان شيء هالكاس لك لكن وحالا أجين هذا أيها جرا ولا كفر البيت دقنوا إنها كالفر وحكوا ترتمى أقوي هنو وحكوا ترتمى رجل ديارسن وحكوا ترتمى متعلمين أو كلين شيت أو أنا دم بدلك كجلين مصمصق أنا أقول متأقوي هنا مواطنين طب ودنيا دك تهينا رجس أيها ترتمى ولا إنها كالفر hor istaag in aan marnaba aadan qaadanin guddoonka baarlamaanka inaad noqoto walaal hor istaag diid cid ka xigta ma leh muxuu yahay sharciga qoraaya in maaragtay laba beelood kaliya ay ku tartamaan hoggaanka ugu sareysa dalka yaa ka muwaadinsan walaal cidna ka ma xigto waxa kaliya oo lagaaga baahan yahay waxay tahay inaad u midoodo oo u istaagto in aad qabato hoggaanka dalka ugu sarreeyay ummadda Soomaaliyeed aad u badbaadiso in aad hoggaanka sare dalka aad qabato si wadanka marxaladda uu ku jiro uu uga baxo in aad hoggaanka ugu sarreeyay dalka aad qabato si dadkaaga qaxootiga ah ee kaamanka ku jira aad deegaanadooda dib ugu celiso argagixisada aad uga xoreyso مسكين كيركا لغو استعمالاyo walaal hor istaag diid mayde cod dheer ku dheh may rag badan baa ku matalaya maanta cid ka xigta male maanta waa maalintii aad mudnayd walaalka koonfur galbeed oo indhaha kala fur dhagahaaga fur iska diid dabinada lagu dhigaayo aad baad u mahadsantahay